بدي والله حمينية عدك أجا معنا دجها أقول راح ندتك عدك يسمع وديار إيروك أما قشين كلام قرشي وانا قدك سيء حاجة علي وحيجة قوي سيء قرشي وانا قدك سيء حاجة علي وحيجة قوي سيء قد كي جعيلك قلت باك السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا تكونوا علنا دمانتين وين سلامنا isku soo noqod wacan oo wanaagsan mar labaad waanaga soo laabanay waxaan hore idin kugu ballan qaaday qof walba oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ama sumcad ku leh inaan hortiina keeno caawa yaa garbahayga fadhiya halkan waxaa fadhiyo fanaanka la holin waayay codka baxsan bismillah dadka dhanba madaxa gacmaha laga saartay iyo fanaanka loo inoo qarsoon asna oo iska barakallahu marka waxaan dileeyahay marka hore soo dhawaada ku soo dhawaada YouTube channel-kayga iyo waliba asxaabteeda nimcaaladan maxaa leediin marka hore maslax orta bay aad iyo aad u mahadsan tahay sida quruxda badan noo soo dhaweysay sida quruxda badan aan channel-kayga caawin ugu soo dhaweysay mideeda kale waan ku faraxsanahay in macnaha barnaamijkan aan kula qabanno hadda fanaanin saas u sii waaweyn ma nihin laakiin qof ma aragtay oo wax walba kor ka soo bilaabo horta ma jiro wax walba hoos bay ka bilowdaan saasay tahay hadana waxaan aaminsanahay dad badan maanta bulshada dhexdeeda magac ku leh inaad fanka ka fariisiin doonto goordhow waliba bariska ka ciideyn doonto ma heerkaas wali ma aan gaarin laakiin waxaan rajeynayaa in macnaha tilaabo walba aan qaadayo macnaha heer in maalin ka sii dambeysay inaan tilaabo sii qaado waa gaaraysa dadaala uu gaaraa wixii loo dadaalaba waa la gaaraa ما شاء الله والله ما سنتهاي وكلنا برنامج كسيده قرح كستو ان اصحابتيدا waa xidhi doona wiilka macaloosha laga haya codkaada sar u qaaday هذا بقاسن قبا هذين يعني markaa waa faasna barnaamijna kala qayb qaato aad bay farxad gelin saartay adiga maslax ma sha Allah dabcan barnaamijka muhiimadiisa waa fanaankeena maslax balse horta asxaabta magacaaga uu sheegtay mana fayeenku ah inaad sheegtay ninkan fanaanka loo mad maxaa ku qarnaaday ada barnaamij fanaan qarsoon waaye hore uu sheegay soo baa magacayga waa Rastacmi okay Rastacmi asaga barnaamijka asagna qayb uu leeyahay ani asaga fanaanka basi wada jira oo goobar rabnaa marka waxa jira wax badan oo isdheeysiin in fanaanka nolol soo weydiyo oo jeceshihiin ogaataan marka annagana waxaan idin qaabilsanahay xagga hadalka Soomaha oo tahay أنا ما كورمنا أنا كورمنا رسم. هذا مدينة سؤال ما أنت وريا. واتها المصلحة دتك هرت بحيث فيديان مصلح هرت مصلحة واتما. مصلح وأنا كان كور فديه. دتك أنت هذا بدني ما قانون دتك كان إسلا سكرنا دتك كان اسمه على الجوجنا في اللي قانون. هم جاي بقول إنه فيها إن الفنان وين نقضه. كل ما أنت سنة وحقيقة هاي فرصة وين أنا ديو كلوس وكل ما كلوس كل هل كان كل فديه برنامج كان على كيف قادنا. waxaan rajeynayaa hadii wixii ka dambeeyay waxa way inaan sii wada shaqeyno labadeen aad weyn magacaaga oo saddexan magacayga oo saddexan waa Maslax Cabdiqaadir Xasan Maslax Cabdiqaadir Xasan mar labaad mar saddexaad waxaan ku leenahay ku soo dhawow YouTube-keena ma noqon doonto markii ugu horeysay ama markii ugu dambeysay oo halkan ka soo muuqan doono in badan oo soo laalaaban doona marka halkaas kaga gudubno qof walba fanka meel buu ka bilaabaa fankaaga xagee ka soo bilowday ama halkee uu ka soo askumay aniga fankeyga horta heer saasi la hadda ma gaarin laakiin qof walba horta wuxuu yahay qof maalin qof un baa u sheegay Soomaha aniga dad badan waxay ku dhahaynayaan nin talent la tahay codkaas leedahay inuu ma fanaan noqotid sidaa darteed marka waxa isugu dayay in macnaha in badan aan haysi hore qaaraamiga Elis Radio codkayga baroobeeyo ilaa hadda heerkaas aan ku taaganahay marka muddo ilaa in la egbad ku baadi jirtaa ama ku daba jirtaa inaad fanaan noqotid wallahi muddo waxaan ku daba jiraa horta waxaan bilaabay inaan codkayga baroobeeyo sanadkii 2014 ilaa haddana waan ku taaganahay waxaan rajeynayaa hadii kadib inaan macnaha boos weyn ka helo fanka boos weyn ka qayb qaato dabcan waan filayaa inaad ka heli doonto fanaaniinta fanka kaaga horeysan ay ku soo dhaweyn doonaan horta fanka inkastoo bayaantan iska noqday wax iska qofka duu hadli karo uu heesi karaa la dhahay balse adii ahaantaada sida aniga la tahay qudheeda dabcan heer waa ka gaari doontaa dad badan hawadu waad ka saari doontaa san horu sheegaba markii halkaas kaga nimaadno maslaxo
ma jiraa hees marka laga soo haro heesaha aad goobiyeysay ama qof u lahaa aad dib u soo cusboonaysiisay kuwa adiga leedahay ku qaasay ma jiro way jiraan heesaan aan leeyahay way jiraan xitaa waxaa jirta mid aniga aan leeyahay oo aan duubay oo macnaha Soomaalida gobaabinayso midaas aniga caadi u leh ereyada waxa sameeyay abwaan ay yiraahdaan Cabdirasaaq Baxay laxankana waxa saaray Cali Shaacir muusigana waxa sameeyay Bulshaawi laakiin wali muuqaal ma aanan u sameeynin laakiin waan ku tali jiraa heestaas iyo heeso kale badanna oo iyagana qoran waan hayaa waana soo wada insha Allah waan soo bandhigi doonaa heestaas hadda inoo sheegaysid erayadeeda wax ma inagu luqan kartaa waxay leedahay waxaad tihiin dad gacaloogeygooda hodan yahay gumaystaha dhibkiisa iyo nabarada gafkii hore inta aad ka gudubtaan oo tala gorfaysaan maad wanaaga garataan Soomaaliyeed garataan leedahay dabcan waa hees gaabin ah ama fariin direeso dabcan sidan ka dareemay erayada dhankaas si aan soo laabto rasta cami masha Allah wallahi maslax waa nin talent leh codkiisuna aad u qurux badan waxa leeyahay anagu kulli waan aragnay markaan nala arki doontaan codkiisa وتحي مسلحة مسلحة دنكاس waxaa jirto saad soo cusbon horto dhanka fanaaniinta markii la dhaho kuwa hore kuwa dhaxay kuwa dambaba kuwa fanka kaga dayta ma jiro waxaan fanka kaga daydaa fanaankeenna weyn boqorka codka Allah naxariistay Maxamed Salibaan Tubaac oo neysihiisa aad iyo aad u jeclahay Allah naxariisto waxaan jeclahay heesa uu leeyahay asaga oo aad soo cusboonaysiisay ma jirto maya ilaa hadda waxaan soo cusboonaysiiyay ma jiro laakiin hal heesa jirto oo gabar wada qaanay taasna waxay ahayd barnaamij live oo ahaa heestaasna waxay ahayd garashiyo wanaag inyar hadii aad nagu luqayso waliba adoo la xameynaya codkaaga macaan dhagaha ugu raaxeynay dadka codkayga Soomaaliya waa diyaar in roka maqashin karaa garashiyo wanaag gudubtay haga caliyo xiga aan goysay garashiyo wanaag gudubtay haga caliyo xiga aan goysay geedkii jacaylkaaga gunti baad ka jirtay guryo samaalahayo agidiro on lahayo gabsan maaye waxaan gocaanaya inaan laba agayaga ano isaf garaadsa noqone isaf garaadsa noqone واو إيش على ما شاء الله عدك قلت الله كبرك يو أنا قدام بدي قاعدة وحق لي بهودا سوحان سر فنان كيست لها ما قرب كاغ فديو بيست قاعدة ما شاء الله ارتعدك الله كبرك يو حد لي عودها لاسيا دنكاسي رست عمي وصلاته سن هوري بلشدو كشاغنا waxaa tahay fanaan qarsoon sabaha marka halkaan dad qofka soo fariista ma cafiyo marka ninkaaga soo laabtay dhankaasi badda waa lagu wada jiraa masrax kaliya ma aha dhankaasi heesaha sabaskuti wallahi kullee ma dhihi karo fanaan baan ahay ama inaan noqdo kullee marjeenayo mana aaminsan kullee inaan cod leeyahay laakiin kullee hadda wadiga qabatay kullee bulshadu baaqiri doontii inaad cod leedahay in kale isku dayo hada Allah ma jirto sanadada dambe waxa socoto ma taqaana neefsana faleeda socdo ma okay kullee hees ma lihid adiga fanaan ma tihid sida wada ognahay balse heesa waxa jira Soomaalihan aad dhageysato adiga qudhaada ama jeceshahay iska qad qaadi meelahaas adoo heesa in codkaaga waa maqlayay way soo gaartay marka hadda nagu luqaysid okay hadaan goriyo ayaan goni ku geeyanka xigsaday hadaan gabalkii dhacaba riyo ku gubaya hadaan geedu wabi ku yaal aniga garashadayde kugaygoon jiri weexsano ayaan kugu doonsado gobiyo barbaatee يا سلام ويا نصيب الله هذا ديس لغو امانه inay yahay halkaas kaaga soo laabado dhankaasi fanaanka nu soo laabto fanaane qof walba waxa jiro qofka markuu fanaan noqdo qofba waxba harta ku kalifa nadiihantaada ma wax kugu kalifay oo cilada ma jirto
ma adiga qudhaada just baashaal ma soo gashay mise waa wax macnaha leedahay meeshaas ka gaar dabadeedna isaga har maya horta fanka wax igu kalifay oo dana ma jirto dee qof walbana hobby buu leeyahay Soomaaliya aad u weyn fanka wuxuu yahay dad danay usoo galaan dadna waxay usoo galaan just in macnaha hobbigooda uu yahay ay farxad ka sameeyaan dadkana ay macnaha ay noqdaan inay macnaha macnaha dadka codkiisa uu bandhigo dhageystaan u farxad geliyo marka aniga fanka waxaan usoo galay aan jeclahay in macnaha hobbigaygu uu yahay dadkana ku farxad geliyo aad u weyn marka dadka bulshada inta badan wax ku dhiirigeliya ama ku dhaho nacada leedahay masha Allah macnaha hore soo in kastoo ayaantan bade qofkii xataa haduu iska cawaaday keep going la dhaho keep going taas la wada socoto qofka keep going taas in kastoo ay socoto hadana waxaa jira dad badan oo ay ku yiraahdeen nin hami laha tahay niyo fanka adigu ku baahan yahay oo hore u soco waan ku sugeynaa ilaa way jiraan ilaa haddana ma arkin qof macnaha idhooniyo saas maaha meeshan saas way ka har aad u weyn waan ku faraxsanahay taageeradiina aad taageereysaan waxaan jeclaynaa hore u sii socdo insha Allah dilaada okay dhankaas iyo fanka markaan ka soo laabano barnaamijka waa isku dhex jir fanka oo kaliya ma qusayo dhankaas iyo markaa u soo laabano maslax ahaantaada iyo noloshaadii kale qaaska markaa hore xagee baad adiga ku dhalatay kusoo barbaartay aniga horta waxaan ku dhashay xirooyinkan qaxootiga qaxootiga reerkeena waxay ahayn dadkii Soomaali ka soo qaxay aad u weyn sagaashimeeyadii waxaan ku dhashay xirey yiraahdaan xagar dheer hadii aad aqoon u leedahay siwacan aad u weyn siwacan magaalada Gaarisa aan ku soo barbaaray ku soo wax bartay ilaa heerkan kula soo gaaray oh masha Allah dhankaas iyo fankan dib ugu soo laabtay hees kale oo adiga noo xuleysidba maadaama anagaan heesaa adigu weydiinay laakiin adiga qudhaada heesaas leedahay heesaa aniga aan qaaday ama ha adan kuwa cusboonaysiisay ama ha adan kuwa adiga ku qaasa heesaas leedahay caawbal asxaabtaada horta aniga heesaas maana duubin halees aan leeyahay caadi ii duuban inta kale nijis baasha leeyahay laakiin dadka haleesaan la wadaagaya oo raba inaan u qaado aad u weyn la wadaag قرح دمارو آدمی داودو يوسف دبابي دوني تيمد باساك دالعين قرح دمارو آدمی داودو يوسف دبابي دوني تيمد باساك دالعين أنا قدرتو لابتو دونتي ما كده قضودين بواي ودوقيو وبحد الله عاي ودوقيو وبحد الله عاي وقدهاي وضرور العدين ديف بقبضهايو دندون استيدي دلنك قادن لا تقدرين دلنك قادن لا تقدرين ان شاء الله ما شاء الله anaga dhan baad naqiiraysaa waan tahay dhankaas anu soo laabano sheekooyinka maslaxo sheekooyinka sida isku tihiin sheekooyinka horta waa jeclaa waa dhageystaa sida ruwaayadaha oo kale haddii waayo tahay haddii wax adiga qudhaada kugu dhacday tahay haddii wax waxaa jira dadka inta badan ayay koris asabahan ayayna de marba haddii ayay koris tahay sheekooyinkaaga aad bay u tira badan yihiin marka hal sheeka oo macnaha anagii asxaabta nala wadaagaysidna may wallahi horta wax sheeka oo na hadda hayo is dhihi karo dadku waad la wadaagi kartaa ma jirto marka waxa leedahay dhankaas sheekada waa ka gaabsaday yaa may ninkaas odaga ku deynina sheekada maslaxa wasaan ognahay dunida yaabkeeda uu iska tira badan yahay iyada waxay tahay yaab socdaa marka inta soo jirtay wax kugu yaabka badnaa maxay ahaayeen wallahi inta aan soo jiray inta aan soo noolaa waxa igu yaab badnaa
وعادي هبيس كده قستجي دلو ذاك ما بحس له قبل ذاك اوكي وكلا حننا وatahay gabagabadii kugu sii dheeraan meeno mana ahan markay ugu dambeysay halkan ka soo muuqan doonto in badan farankeena way noo soo laaban doona waxyaabo fara badan way soo socdaan waxaan idin leenahay mar walba in la socdo ayna ku xirnaada heesta ugu dambeysay barnaamijka ku soo afmeerina barnaamijka waxa ku soo afmeerina hees ay yiraahdaan sida aad dhalantaa عدو كلي معنا وش هيستو الله حميس انت واحد دقيستو ساس دتك دقها كل راح يستنبل رواي ان هيستو قدام يسوق سو خيرن waxay tahay waxay yiraahdaan heesta magaceeda sida aad dhalan tahay waxaan ku bilaabanaysaa sidatan sida aan dhalan tahay oo aan ku dhalay dadka ka dhaweystay sida aan dhalan tahay oo aan ku dhalay dadka ka dhaweystay dhinacyada wadnaha iyo duntu kalgacalkuna daweyga yaala dhabtu jacaylku yaala na dhabtu jacaylku yaala sida dhiraha miraha leh oo dhibicii dayrayd subaxnimo ku soo dhacay hooy dhalabkiyo malabkubaga dhirta dacalka saareen hooy dhalabkiyo malabkubaga dhirta dacalka saareen aan ku dhaaweeyo marna aan ku dheeede adiguna hadheeraagan ilaa baadhagiyo qurux intu ku dhameeya hablataa ka dheerataaga waxagala dhaqmaatiga ifka dheemaniya lul lagu dhaaga absan maaye dhabtu jacaylku yaala hadhabtu jacaylku yaala dhexda taaka iyo socod ama dhabarka geeyada sida dhama dhulka iswadhay hooy dhalabkiyo malabkubaga dhirta dacalka saareen hooy dhalabkiyo malabkubaga dhirta dacalka saareen aan ku dhaaweeyo marna aan ku dheeede adiguna hadheeraaga waa maqashaynayahay adiguna hadheeraan intaas ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkii barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay fanaankeena codka baxsan da-da yar maasha allah maslax iyo sidoo kale oo walaalkayga rastaa camey tan intaan ku kulmi doono muuqaalkiisa xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano allah